horta marka ugu horeysa aynu isdhegaysano oo hala aamuso marka labaad saani ma maqlaysaan hadday qaylidaan mikrofoonka idinkaa gelaya anigu kuma jirayo oo idinkaa hadalkiina laga maqlayaa meel walba marka taas ogaada marka hore haddaad wada maqlaysaan dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan halkan uga mahadnaqayaa marka ugu horeysa waxaan halkan marka hore uga mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasheeda halkan iskugu yimid ilaa xalay toole ilaa shalay meeshan ku hawlanaa inay dhisaan rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin waxaan salaan iyo mahadnaq halkan uga tabinayaa suldaankeenna da'da yar caaqiladeenna labada jiif caaqil oo haddaana iyagu hawlahan sii qaban aan maanta hawshu inagu sii dheeraan lahayd iyagaa jilciyey iyagaa ayaa ka soo shaqeeyey in maanta reerku mid noqdo reerkiina siba saas ayuu mid keliya ku noqday oo aanu noqonnay aniga iyo xildhibaan khadar qoorgaab labada musharax ee codkiina maanta raadinaya xusuustase laakiin codkiina uma doonayna inaannu ku noqno annagu celebrity iyo famous iyo wax qof caana ma rabno inaan noqonno codkiina uma doonayo inaan lacagtiinna xado codkiina uma doonayo in aan mushahar qaato codkiina uma doonayo in aan guri cad dhisto codkiina mid kaleyaan u doonayaa codkiina idinkaan idin doonayaa codkiina aad siisaan idinkoo idinku soo noqonaya codkiina aad siisaan idinkuu qiimihiinni dib u soo celinayaa dhacay codkiina aad siisaan idinkuu xuquuqdiinnii muddada badan maqnayd dib u soo celinaya waxaad xusuustaan dalkan markii uu udub xukumi jiray meeqaanka iyo sharaftaynu ku lahayn iyo awooddaynu ku lahayn maanta eeg haddaad samara tihiin waxa la yaalo waxaad ka tihiin ma jirto miyeedaan damqanahayn waa inaad damiir yeelataan waa inaad damiir yeelataan dawladnimadu wax ciyaara ma aha dawladnimadu waxay dhaqdaa dadka waxay dhaqdaa dhulka dawladnimadu tacliintay dhaqdaa horumarka ummadday dhaqdaa maskaxda dadkay korisaa haddii taa dibadda laydinka dhigo dee waxba ma dhaanno xayawaanka meeraysanaya ha ku farxina beenta had iyo jeer meelaha laga tabinayo magacyada laydin bixinaya ha ku farxina waa beena waa laydinku khiyaamanaya marka la arabaa cirkii dhulka taabtay eed qososhaanaydu dantiina garan weydaan waa laydinku sii qoslaya dagaal u diyaar noqda dagaal really dagaalkaasina muxuu yahay waa dagaal nabadeed marka hore oo dalka innagaa dhisnay meel kale sanam way isku aamin weyda oon beligubadla ahayn beligubadla waa meeshii keliya laga waayo basaas oo basaasa snm askartii snm meel keliya oo ku dhuumatay way weyday oon beligubadla ahayn arab mooyaane wax sirtooda qaliya waa la waayey arab mooyaane wax xubkooda la baxsado waa la waayey xusuusta markaa waa inaydin ogaataan qiimahaad leedihiin haddaydaan isqiimayn idinku cid idin qiimayn mayso sidaad isku qiimaynaysaana waxay tahay marka ugu horraysa inaad meel wada martaan anugu haddaan xildhibaan aan maanta ku soo baxaad ii doorataan oo idaan idinku idiba socon xildhibaan rawaayadaan noqonayan micnaa lahayn marka laakiin aan noqdo xildhibaan ummaddiisu ka dambayso ummadda u shaqeeya maaha ummaddu iima shaqaysa ummaddaan u shaqeeya waayo iyagaa i soo doortay iyagaa ila xisaabtamaya may fahanteen xildhibaanku maaha ka intuu mushahar dawladda ka qaato gaadhe cad iibsadee dabeedna halkaa mare ummadda ka faane ka fogaada xildhibaanku waxa weeyaan ka ummaddiisa ku dhex jira ummaddiisa hoggaamiya ummaddiisa dhegaysta ummaddiisa wax u qabta xildhibaanku waa kaas xusbigaynu nahay waa xusbiga waddani
halkan waxaa ka salaamaya madaxda xisbiga wadani madaxweynuhu xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga wadani mudane ciro iyo matasharaftii halkan nooga timid cabdiqaadir jirde iyo ka mid ahaa khadar waxa kale oo nid xusuusinaya maanta waxa la leeyahay waa gabagabadii yaraa musaada aamusanyeer maanta waxa la leeyahay waa gabagabadii ololaha laakiin waa bilowgii dagaalkii codaynta waa maanta kii ilaawa amba ka wahsada inuu codeeyo waa mid ilaaway amba ka wahsaday inuu xildhibaankiisa soo saaro codku yaraysi ma laha haddaad yar tahay haddaad weyn tahay haddaad gabarh tahay haddaad wiil tahay haddaad odtay haddaad dhallinyar tahayba waxaa lagu ogyahay xaafaddan dhallinyaro iyo haween aad iyo aad u firfircoon maantana haddana baaq kale aan soo jeedaan leeyahay sidii aad awalba u soo bixi jirteen sida awalba xuquuqdiina u raadsan jirteen maanta shanlaaba dalkani wuxuu u baahan yahay isbeddel siyaasadeed ayuu dalkani u baahan yahay wuxuu u baahan yahay inaannu wax ka noqonno innagu aynu danaheenna furshanno ma aha inaynu nin kale un sacabka u turno ma aha nin kaloo la laaluushay inaynu daba soconno ma aha innagu waynanu horseadkii laynagu yaqaanaynu wax hoggaamin jirnay waynu halkeedii ku soo noqonnaa aynu hoggaaminaa dalkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dadweynihii ku soo dhoweeyey shalay iyo daraad tuulooyinkiisa aan soo maray hawd iyo wixii ka sarreeya oo qiimalay soo dhoweeyey diyaarna u ah inay codkooda bixiyaan intiina fahansan sida loo codaynayaa waa in intiina kale aad ka dhaadhicisaan habka loo codaynaya qalinka haddii uu dhaafo squareka haddii uu dhaafo in la tuurayo codkiinna ogaada taas si fiican u ogaada taas kiina aan garanahayn sida loo codeeya ama tiina aan garanahayn sida loo codeeya waa inay golaha ka dhex tiraadaa hebel baan rabaa inuuna codeeyo oo xusbigaa ka tirsan waa la caawinayaa dad baa u diyaara oo idin caawinaya maamulka iyo is-abaabulka maalinta doorashadu waa meesha keliya ee guushu ka dhalato toosa isdiyaariya ka soo horreeya dadka safka hore u soo gala waayo waxaa jirta dad badan baa ayaa waxay sameeyaan si codkiinna aanay meesha ugu dhicin bay ka sameeyaan carqalado aan loo baahnayn iska ilaaliya codkiinnu meeshaad u baahantiin waa inu ku dhacaa jimca weeyaan hadalka badin maayo waxaan idiin rajaynayaa oon inoo rajaynayaa guul baan inoo rajaynayaa dhammaanteen aad iyo aad baad umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu